قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. janalka aad daawanaysaan waa alkarma official. maanta waxaan idin soo gudbin doonaa erayo xikmad badan iyo xaqiiqooyinka nolosha. waxa aan murugoodaa marka aan xiiseeyo waqti fiican oo idaafay in uu soo noqdo. waxa aan murugoodaa marka aan xusuusto qof wanaagsanaa oo adduunyada kaga anbabaxay safar aan soo noqosho lahayn. waxa aan murugoodaa marka aan muraayada hor istaago ee aan ku sigto in aan nuuqayga garan waayo isbeddelka igu dhacay dartii. waxa aan murugoodaa marka aan cod dheer oo qaylo dhaan ah dirto oo cid iga jawaabta aan waayo. waxa aan murugoodaa marka aan dareemo dulmila igu haayo oo aan taag u haynin in aan naftayda ku difaaco. waxa aan murugoodaa marka aan jacaylka dartii igu tanaasulo waxyaabo badan oo ay naftayda u baahnayd. waxa aan murugoodaa marka ay daruufuhu i qasbaan in aan mabaadi'deyda qaarkood beddelo si ay nolosha u socoto. waxa aan murugoodaa marka ay waayuhu i beddelaan in aan jiro kaalin aan igu habboonayn. waxa aan murugoodaa marka aan ku qasbanaado in aan cagtayda hoos dhigo shay kasta iyo ruux kasta oo aan jeclaa si aan u dhigto kaabad oo aan u gaadho meel sare oo hiigsanayo. marka aan si diiran u gacan qaado gacan aan ogahay ilaa xadka ay wasaqaysan tahay. marka aan isu qaloociyo dhinaca duufaanka u dhacaya aniga oo ka cabsi qaba inaan isu adkeeyo kadibna ay u qasbaan meesha aan taaganahay oo aan doonayo in aan ka dhaqaaqin. marka aan dareemo in ay igu hareeraysan yihiin dad ay duruufuhu igu qasbayaan in aan la joogo. marka aan arko duruufaha iyo waayaha adduun ee gedisan oo igu xiriiraya in aan mid mid ugu tanaasulo himilooyinka aan muddo dheer kuriyoonayay. marka aan cod dheer ku qoslo aniga oo doonaya keliya inaan codkaa dheer ku qariyo reenka oohintayda. marka aan dareemo in aan sabab u ahaa murugada dhibta ruux kale oo la silcaya. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي، معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي. من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.